مالك جمعة وحلية هاي فضائل ديرانا منعها إنه كولمت أهاضو مالمها كله وإنه قفك يقانا مالك فضل قوليه هاي ديرات كأ أشياء السنة أهنا كتلقلا إنه كفى إذا يستو إنتو كجارو وكأول ومال إلهي السيي ومد النبي محمد صلى الله عليه وسلم وحانا كلو مي أوساقي يهودي النصارى وحو النبي عليه الصلاة والسلام أضل الله عن الجمعة من كان قبلنا إلهي وحو كلو مي جمعة وخير كذا يا فضل كذا كلو مي وسيتشي كوي نغوري فكان لليهود يوم السبت وكان للنصارى يوم الأحد يهود waxay ku dhageen oo qaateen maalinta sabtiga inay u ahaato asbuuca ciidis nasaaraduna maalinta ahad inay asbuuca maalinka nastaan oo ciida ay u ahaato fajaa allah bina fahadana allah liyawm aljum'ah ilaahi baa ina keenay adduunyada markaasuu ilaahay wuxuu inagu hanuuniyay ummadihi inaga horeeyay maalinkii ay seegeen oo fadliga badnaa oo jumcada aha ayaa ilaahay nisi markaas nabigu yiri alayhi salatu wasalaam waja'ala aljum'ata was-sabta wal-ahad maalmaha ilaahay wuxuu ka dhigay mid hore jumcada sabtiga oo ka dambeeya ahad oo ka sii dambaysa wakadalika hum tab'u lana yawm al-qiyamah sida maalinkeenu ugu horeeya maalmahooda ayaga ciid oo ah ayaa ugu horeyna ay tabac noogu yihiin maalinta qiyaamaha anagu aan uga horeyna nahnu al-akhiruna min ahli ad-dunya wal-awwaluna yawm al-qiyamah anagu waxaan nahay kuwa adduunka dadka jooga ugu dambeeya adduunyada dadka ugu dambeeya waa ummadda nabi maxamed sallallahu alayhi wasallam ayada ayaa ummadaha ugu dambaysa isla markaas waxaan nahay kuwa ugu horeeya qiyaamaha dadka المقضي لهم قبل الخلائق waxa weeyaan ayaga hawshooda la dhameeynayo oo la kala xukumayo intay ummadaha kale horan yihiin oo aan la taaban ayaa ummadda nabi maxamed ugu horeeyaan xagga qadaayagooda iyo kala saaridooda ummadda nabi maxamed baa ugu horeysa adduunkana abuurista ayaga ugu dambeeya ummadda nabi maxamed sallallahu alayhi wasallam ummad kale oo naga dambaysa oo nabi kale loo soo saaraya ma ay jirto وحلا وحي أدونك يبادة وأمد النبي عليه الصلاة والسلام مالك إستجاء ومالك قرح يصاب هذا مالك وفضل قبضه وحو النبي عليه الصلاة والسلام خير يوم طلعت عليه الشمس يوم الجمعة مالك قرح يصاب لطه وحأقوين وأقو خير بدن مالك جمعة يا أقو خير بدن فيه خلق آدم وفيه أدخل الجنة وفيه أخرج منها ومالك آدم لأبوري مالك جمعة ومالك جنة لقليي آدم عليه السلام ومالك لقصو صار نبي عليه الصلاة والسلام وحكى أحاديثك لكل شيء إنه مالك جمعة ويهي فيه قبل مالك آدم أودنتين وحوها مال الجمعة أيها وفيه النفخة وفيه الصعق مال تبونك قيامها الأفوفية وحكوب بيجيها مال الجمعة صعقيga iyo suuxida dhacaysana sacqiguna wuxuu ku beegan yahay maalin jumca ayuu ku beegan yahay maalinkan sidaas ayuu qiimo badan yahay ilaahay baa inooga dhigay ciid nabigu wuxuu yiri alayhi salatu wasalaam inna hadha al-yawm ciid ja'alahu Allah lilmuslimin maalinkani waa maalin ciid ah ilaahay uu yeelay dadka muslimiinta u yeelay ciidan waxa la yiraahdaa ciidu sughra ciidi yarayd labada ciidood oo kalena waa ciidii weynay ciida soonka ka dambaysa ciidul fitri iyo ciida ka dambaysa waxa weeyaan maalinta xajka weyn la gudanaya ah ee ciidul adha saddexda ciidood ciid afraysa ama shanaysa islaamka kuma sugna mana la ogola in waxa weeyaan muslimiintu ayagu ay samaystaan maalin ciid ah oo ay jidaystaan dambina weeye xaraamna weeye ama ku magacaw mid waalidka markuu dhintay la iskugu yimaado oo sanad guurta ah ama ha ku magacaabna tacalan gooni ah mid meel la saarahayo ama ku magacaab maalintii heblaayo ama ha kuugu magacaabna maalintii mawlidka ha ahaato
maalmaha noocaasa waxa weeyaan oo kala duwan oo waxa weeyaan dadku ay ku tashanayaan oo sida ciidda u soo baxaan oo u dabaaldegaan oo waxa weeyaan u faraxsan yihiin u samaysanayaan wax ka jira male ciidda la ogol yahay islaamka dhexdiisa waa midaas maanta aynu joogno ciidda yar ah iyo labada kala weeyaan maalinkan isaga ah wuxuu nabigu sheegay calayhi salaatu wasalaam jumcada ilaa jumcada kale qofka in loo dhaafo dambiga wuxuu nabigu yiri as-salawaatu al-khams wal-jum'atu ila al-jum'a wa-ramadaanu ila ramadaan mukaffiratun ma baynahun idha ijtunibat al-kaba'ir salaadaha shanta ah iyo jumcada ilaa jumcada kale iyo bisha ramadaankeeda kale qofka waxa loogu dhaafaa dambiyadii yaryaraa hadduu ka dheeraado kabaa'irta marka jumcadii hore iyo midaan inta u dhaxaysa wixii dambi ahaa oo ka dhacay oo kabaa'irta aan ahayn ee saqaa'irta ah ayaa ilaahay kuugu dhaqahaya subxaanahu wa ta'ala fadaa'ishiisa maalinka waxa kamid ah waxa ku jirta saacad ilaahay qofkii wax weydiista uu aqbalayo ajiibayo wuxuu nabigu yiri calayhi salaatu wasalaam inna fil jumu'ati la saa'atan la yuwafiquha muslimun qa'imun yusalli yas'alu allaha khayran illa a'taahu iyyah maalinta jumcada waxa ku jirta saacad waqti baa ku jira saacadaasi ma aha mid adiga ku xiran oo 60 daqiiqo laga wado waqti ayaa ku jira laga wada waqtigaasi waxa weeyaan qof muslim ah oo ilaahay baryahaya ma jiro oo ducada iyo baryaha u taagan oo ilaahay tuugaya weydiisanaya khayr ama ha ahaada mid adduun ama ha ahaada mid aakhiro illa ilaahay waasinaya kii uu weydiistay ayuu ilaahay siinaya subxaanahu wa ta'ala xadiidka kale wuxuu tilmaamayaa waxa weeyaan faltamisuha aakhira saacatin ba'da al-'asr waxa ka raadisaan saacada iyo waqtigaas ducada si gooniya loo aqbalahayo salaada casirka ka bacdi waqtiga ka dambeeya ka raadiya halka ka raadiya fadligaasi marka maalinkan waa leeyahay waxa la dhex dhigay saacadaas qiimaha badan oo lagu talagalayo waxa kamida fadaa'ishiisa suuratul kahfi in akhriyo nabigu wuxuu yiri calayhi salaatu wasalaam suuratul kahfi qofka akhriya labada jumca inta u dhaxaysa ayaa u ifta oo ilaahay iftiin ku siiya iyo nuur subhanahu wa ta'ala waxa kamida fadaa'isha maalinkan uu leeyahay waxa weeyaan iyo hameenkiisaba salliga nabiga in la badiyo sallallahu alayhi wasallam wuxuu nabigu yiri calayhi salaatu wasalaam min afdali ayyamikum yawm al-jum'ah maalmihina waxa ugu fadli badan maalinta jumcada fa akthiru alayya min as-salah fa inna salatakum ma'rudatun alayya waxa badisaan salliga aad igu sallinaysaan badiya waa la isoo bandhigaya markaas saxaabadu waxay yiraahdeen ya rasuulallah kayfa tu'radu salatuna wa qad aramta seelugu soo bandhigaya salliga aan kugu sallinayno adigoo lafahaagiba ay baaliyoobeen oo baabaaday markaas nabigu yiri inna allaha qad harrama 'ala al-ard an ta'kula ajsad al-anbiya ilaahay wuxuu ka xarimay dhulka inuu cuno anbiyada ilaahay jasadkooda inuu cuno ilaahay waa ka xarimay subhanahu wa ta'ala xadiidka kale waxa weeyaan fa akthiru as-salata 'alay ina igu sallisaan badiya faman salla 'alayya salatan sallallahu alayhi 10 hal mar qofkii ugu salliya 10 jeer ayaa ilaahay subhanahu wa ta'ala ku sallinaya salliga ilaahayna waxa weeyaan thana'uhu fil mala'i al-a'la ilaahay inuu adoonkan amaanayo oo mala'a sare uu ka dhexdooda ku amaanahayo malaa'ikta muqarrabiinta ah ayaa ilaahay ku dhex amaanaya marka salliga nabiga in la badiyo habeenkeeda iyo maalinkeedaba shay aad iyo aad u qiimo badan weey waxa kamida fadaa'isheedu ay leedahay qofka habeenka jumcada dhinta ama maalinka jumcada la oofsado waxa loo rajaynayaa xusnul khaatima calaamadaha xusnul khaatimada lagu yaqaano qofka khaatimo wanaagsan ku dhintay waxa kamid ah inuu ku dhintay habeen jumca inuu dhinto ama maalin jumca uu dhinto nabiga sheegay calayhi salaatu wasalaam fadaa'isha maalinkan uu leeyahay aad u fara badan yahay waxa haboon marka qofku inuu kaga faa'iideysto waxa weeyaan qiraa'ada quraanka waxa salliga nabiga uu badiyo sidoo kale sunnadii oo qubayska iyo tiibkii iyo udgoonkii qofku uu marsanahayay
iyo waqti hore inuu yimaado inuu ilaaliyo aadaabta markuu yimaado dadka uusan qoortooda ka tilaabsanin meesha markaas uu bannaan oo safka uu ka helo uu fariisto inuu ku mashquulo dikriga ilaahay subxaanahu wa tacaala salliga nebiga iyo akhrinta qur'aanka inuu ku mashquulo ee uu iska daayo sheekada iyo waxyaalaha kale oo waxa weeyaan jumcadiisa wax u dhibahaya kadalika intay khudbadu socoto inuu qofku wax weeyaan iska joojiyo hadalka iyo falaadka waxyaalaha qaarkood ku falaadahayo ayadana waxa weeyaan mamnuuc weeye waa in aad iyo aad arrinkaa la iskaga ilaaliya maalinkaa qiimaha badan oo yahuud iyo nasaara ay seegeen waxaa nasiib darro ah waxa weeyaan dad muslimiinana sidoo kale inay u seegaan oo maalinkaasi waxa weeyaan fadliga badan uu seego qaarkood bal maalinkan ciidu suqra ma ahan ciidda weyn oo ciidul kubraaga ah oo ciidul adha ah oo ah ilaahay agtiisa maalmaha maalinka ugu weyn ee nabigu sheegay sallallahu alayhi wasallam inna a'zama al-ayami 'inda Allah yawm an-nahr inna a'zama al-ayami 'inda Allah yawm an-nahr maalinka xoolaha la qalahayo oo ilaahay agtiisa ugu weyn maalinka isaga ah ama jumcaha ku beegmo ama yuunan ku beegmin maalmaha sanadka marka la yiraahdo waxa ugu weyn waxa weeyaan maalinka ciidul adha ah oo yawm an-nahr ah thumma yawm al-qar waxa ku xiga maalinka ka dambeeya oo 11aadka ah oo mina lagu sugan yahay ba ku xiga waxa weeyaan laakiin usbuuca marka la yiraahdo usbuuca waxa ugu fadli badan maalin jumca ah dadkii marka yahuuda ah oo nasaarada ilaahay ka indhasaabay waxa dhacda muslimiinta qaarkood qaar kamid ah gobolada qaarkood in dad badan laga indhasaabay inay maalinkaas ciidul adha ay muslimiinta la ciidaan maalinka yawm arafa ahna waxa weeyaan oo muslimiintu ay sooman yihiin ay soomaan ciidi hadda ina soo dhaaftay maalin jumca bay ku beegantay jumcada fadligeedii way lahayd maalinka ilaahay agtiisa ugu weyn wuu ahaa ciidul adha buu ahaa maalinkii ka horeeyayna wuxuu ahaa yawm arafa gobolada qaarkood gaar ahaan gobolada mudug waxa weeyaan dad aad u fara badan oo culummo iyo caamo leh ayaa sanad walba waxay caado ka dhigtaan inay muslimiinta ku khilaafaan maalinta carafada iyo maalinta ka dambayso ciidda bal qaarkood xajka ayagoo jooga ayay waxay la soo hadlayaan dadkoodii oo leeyihiin maanta carafo ma aha khalad baa loo taagan yahay aragtidii deegaankeenna ayaa sax ahayd waana la dadajiyay ee carafo ma ahan carafaha soominin ayay leeyihiin waa arrin dhaca sanad walba ayuu arrinka isaga ahi dhaca sida ilaahay uga indhasaabay bal fiiri maalinkii yawm arafa oo banka carafo la taagnaa oo malaayiin albashar isku yimaadeen oo adduunyada daafaheeda wixii aan xaj ka imaanin ay sooman yihiin oo fadligii sanadkii hore iyo sanadka dambe loogu dhaafahayo ayuu wuxuu u haystaa inaysan sagaalaadba ahayn inaysan carafaba ahayn ee sideedaad ay tahay ma soomana maalinkii ka dambeeyay oo ilaahay agtiisa maalmihii ugu weynaa ah uguna fadliga badnaa maalinkii ugu weynaa ah oo in la sooma ay xaraam tahay oo ciidda ahaa ayuu asagu sooman yahay oo carafa ay tahay soo ilaahay kama lumin carafana ilaahay kama lumin maalintii ciidda oo fadliga weynayna ilaahay kama lumin haddii yahuud iyo nasaara jumca ay seegeen soo nasiib darro ma aha dad muslimiin ah inay carafo ay seegto oo malaayiin albashar ay ku khilaafsan yihiin inay carafo tahay maalinkii ka dambeeyo ciidda ahaana ay sooman yihiin oo ay leeyihiin waa carafo sanadkii hore ay dhacday kii ka horreeyay dhacday sanad walba dhacday dadkaasi waxay u baahan yihiin gurma dacwo iyo khayr iyo wanaag in loogu yeero oo laga dhaadhiciyo oo la fahamsiiyo carafadu inay tahay maalinta muslimiintu ay carafo taagan yihiin ciiduna inay tahay maalinta muslimiintu ay ciidayaan in waxa weeyaan fadligaas seegahaya gurmad ay u baahan yihiin ilaahayna subxaanahu wa tacaala hayna waafajiyo shaygaa isaga ahi waxa weeyaan shay muhima oo dacwo muhima u baahan dadkaasi weeyaan u badan yihiin gobollada dhexe ha u badnaadeen laakiin afraad ka midana waa la helayaa